wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxa wax laga weydiiyay xaaladda uu ku sugan yahay hogaamiye diimeedka Xasan Dahir Aweys oo dhawaan gacanta u galay dawladda Soomaaliya wuxuuna ku jawaabay Xasan Dahir Aweys waa nin aad looga yaqaan dalka Soomaaliya maraaxil badanna ka soo maray wuxuu asagoo amaana ku jira gacanta dawladda Soomaaliya waa amaan caafimaadkiisa subax walba iyo xaaladiisa waa layga wargeliyaa waxa ugu dambeysay saacado ka hor in layga wargeliyo waa amaan wuu laga yahay sidoo kale waxaan si gaar ah uga mahadnaqaynaa odayaashii iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed oo soo galbisay oo xamar keentay ayagoo wakiilka ah dawladda aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan annaqaba haddaad ku laabatid hadda wax gooni ah oo ay dawladda ka tabanayaan haddii ay jirto saacadan ayada ah aniga waxaan qabaa wada hadaladii u dambeysay oo dhacay in heshiis iyo afgarad ay ku dhamaadeen